السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، عبد الله بن عمر بن الخطاب إلهي هكرا لنقضي وحيري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قف أي النبي أيمد وحو كيري يا رسول الله، إلهي رسول كيسيو، أي الناس أحب إلى الله؟ دتك با إلهي حقي سلو جعلان بدني هي، وأي الأعمال أحب إلى الله؟ عملك با إلهي حقي سلو جعلان بدني هي. نبي صلى الله عليه وسلم وحو كجوابي: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. دد إلهي حقيسي waxaa looga jeclaan badan yahay dadka kuwa ugu wax tarida badan oo dadka wax tara. وأي الأعمال أحب إلى الله؟ عملك با إلهي حقيسي looga jeclaan badan yahay. nabiga wuxuu ku jawaabay صلى الله عليه وسلم: سرور تدخله على مسلم، qof muslima inaad farxad gelisid، أو تكشف عنه كربة، ama kurbada inaad ka feedid، أو تقضي عنه دينا، qof muslima inaad deynta ka gudid، ama aw tadrudu canhu juuca, qof muslim ah oo gaajaysan inaad quudisid. nebiga wuxuu raaciyey in aan qof walaal ah baahidiisii usoo gudo aan u raaco ayaan ka jeclahay in aan masjidka madiina hal bil ku ictikaafsanaado. ciyaar ma aha qof muslima inaad caawisid, ciyaar ma aha qof muslima dantiisa inaad soo gudid, ciyaar ma aha, dheeldheel ma aha, wax yar ma aha qof muslima inaad caawisid. أحبتي في الله، ابن رجب بن حنبل رحمه الله تعالى wuxuu yidhi dadka waxa ugu khayr badan, dadka wax ugu tarida badan, dadka wax tara ayaa dadka ugu khayr badan. waxaa kaloo dadka ugu khayr badan dadka ku samra dhibaatooyinka dadka kale ku sameeyaan. الإمام حسن البصري رحمة الله تعالى عليه wuxuu yidhi: لأن أقضي لمسلم حاجة أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. qof muslim ah inaan xaajadiisa iyo dantiisa usoo dhammaystiro ayaa xaggayga looga jeclaan badan yahay in aan tukado 1000 rakac, 1000 rakacdood inaan tukado. waxaan ka jeclahay buu yidhi qof muslim ah baahidiisa inaan tiro, qof muslim ah xaajadiisa inaan u dhammaystiro ayaan ka jeclahay buu yidhi. marka axibatii fi llah, waxaan naftaydii naftiina ku boorinayaa inaan dadka walaalaha caawino. inta aad awoodid walaalkaaga ku caawi. jazakum allahu khayra aljaza, wa shukran lakum lixusni istimaacikum. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh.